marka nimanka waxay iyaga dhan waxay u halgamayaan waxa weeye wadadan annaga iyo sheekhyada iyo qaab fasirka annaga aan ku wadno na soo raax haddana soo raac weyda gaal baad marka ama gaalna dhaha ama hana dhihina waayo ummadii dhan baaba dhahdeen wadadanada hadday soo marin gaalayihiin waa marka ninka kutubtaysa waxaas ay ugu qoran tahay yaa raba inuu darsi iyo cashar ka bixiyo takfiir iyo gaalaysiin ummado kalena ku dhaleeceeyo waxaan maqli jiray maroodiga takarta saarantiisa ma arkee midda kale u arka bal naqdhifu bil haqqi ala al batil fayadmaghuhu fa idha huwa zahiq wa lakum al waylu mimma tasifun الحمد لله الملك العلام والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد وقيبتي تضبي طبنات برنامج كنجي تحناها نوعها كرباش كشيعاد كرباش كمان توحان كو تعليقين دونا هذا الويري نكي رافض جاها جبرتي وحكو إيدي مذاهب كلايتو إن أي تكفيريان قاليسيان ضدك أي كأركتي دوان wuxuu ku dhaleeceeyay inay gaalaysiiyaan suufiyada ashaacirada iyo waxyaabaha la halmaalo bil munaasaba waxaan rabaa inaan idiin sheego mana aha qofka kaliya ay gaalaysiiyeen axmed tooye ma ah waxay gaalaysiiyeen ummad dhan oo axmed u nisba sheegto oo suufiye la dhaho muslimiin dhan oo iswadata ayay cambakrati abihim dabada intay ka mareen bay dhaheen suufiyadu waa gaalo ashaaciradu waa gaalo haddaba kutubtiisa kama warqabo miya jahliga waxa kamida wax aada aqoonin inaad iska dhaxgasho iska tiimbato sida caadada ahayd waxaan cashar uga dhigi doonaa kutubtiisa oo nooga soo saari doono sida loo gaalaysiiyay suufiyada sida loo gaalaysiiyay ashaacirada iyo gabi ahaanba dhammaan wax alla wixii ayaga fikir ahaan kaga soo horjeedo oonan madhabkooda ahayn sida loo gaalaysiiyay dhiigooda loo xalaashaday xoolahooda loo xalaashaday cirdigooda loo banaystay marka hore waxa ila fiirisan kitaabkan magaciisa la dhaho risaalatu al-ithna ashariya fi radd ala suufiyya waxaan ka soo qaadayaa hal cibaaro bas wa illa kitaabka oo dhanba iyo risaalada oo dhanba waxay u dejisan tahay in suufiyada dhaleecayso la aflagaadeeyo in ma aragtay la gaalaysiiyo cibaarada bal ila fiiriya marka wa kullu shi'ati ala kufrihim wala shi'ada oo dhan waxay qabaan in suufiyadu ay gaalayihiin والرد عليهم بطريق المبالغة العظيمة سحلر اللي رديو اللي سقفوجي أي قبان إلى مقعود على لبح كريمبا هي ممنوع كديان وعيري عبارة كذب ولنذكر في هذا المقام إشارة إلى بعض من رد عليهم من العلماء وقال بكفرهم وصرح بضلالهم وحاربنا إن المقام كان كل شيء علماء رديي قاليسيي عدي إن الدنسيين وضدي سحدنا كوذا وعذين وسوفيا ذا عجيب يعني أو أحلى ليام هذا صو أرجنا وحي كده هين سوفيا ذا بل حضرنا عن فيرنو أشاعرة وعن صو قبلنا كتاب كلنا الأنوار النعمانية لنعمة الله الجزائري مجلد كلابات له بقول عفرتني سده وعلي أقول فالأشاعرة لم يعرفوا ربهم بوجه صحيح بل عرفوه بوجه غير صحيح وحليا شاعرضو ربي أبو رتيبة ما يقانان قاب صح وما يقانان سقل دن ودن صار يقانان بوليه فلا فرق بين معرفتهم هذه ومعرفة باقي الكفار يجي قارضة كريتو wax farqi u dhaxeeya ma jiro xagga garashada ilaahay wuxuu yiri fala shaa'iratu wa mutaabi'uhum ashaa'irada inta taabacsani hum aswa halan fi bab ma'rifati as-sani' min al-mushrikin wa an-nasara iyaga ka daran mushrikiinta iyo nasarada kristiyaanka iyaga ka xun oo ka daran baabka markii la joogo garashada ilaahay soo wuxuu leeyahay ووجه آخر لهذا لا أعلم سوء عليه وحاصله أن لا نجتمع معهم على إله ولا على نبي ولا على إمام اسكو إله منهن اسكو نبي منهن اسكو إمامنا منهن أيوليه إله هذو
وإله النبي يسوع خليفه أبو بكر نبي جود والنبي خليف كيسو أبو بكر أنا كاس إلهي إن معهن نبي كاس النبي إن معهن أيو ليه مرك هير كاس أيو جارسية نعمة الله الجزائر محدد كشعادة مركو كهلاي مركو كهلاي نمك اللي يرهدو أشاعرة وحرة مركا هدي أتصور إن الصوفية دي أشاعرة دي وحي كدهن جود أهم مخالفك قفك أيها كفكر دوان ما حي كدهن كتاب كان كله وحي أوائل المقالات ويسكله يا شيخ المفيد وعليها مرك واتفقت الإمامية على أن من أنكر إمامة أحد الأئمة وجحد ما أوجبه الله تعالى من فرض الطاعة فهو كافر ضال مستحق للخلود في النار قفك هل إمام لبي طمانك إماما أنك لنا إمامية 12 الله قفك هل كم إذا إنكرايا روحاسي وحوليه طاعة سنة ديدا وقال رنسن نارتا إنو كوارنا متيستيجي ليه هذا نمر كلو وحوليه واتفقت الإمامية على أن أصحاب البدع كلهم كفار على أن أصحاب البدع كلهم كفار كل ودن قاليه وحنا نقصور جدو أهل البدع ودن فإن تابوا هدي توبت كينان بدعوين كسر لابتان وسيد الربي وإلا هدي كلا قاتلهم لردتهم عن الإمام مرتدنما لودليا مرتدنما أيا لودليا قف كستون 12 أهين مد كميد ديدا أما بكسور جدا أي ما ديدا وقاب كان أنك أؤمن سنة ديدين وأمنه روحاسي وحوي وإلا ديلا هدي أول ليهي تاس ديل كان أيضا ففاسني يدارك دونتان أيو ليهي علي وأن من مات منهم على تلك البدعة فهو من أهل النار قفك سيدا كل انتر وأهل النار بوليه هل كاسودو waxaad ka arkaysaa in ay sidaas u gaalaysiinayaan dhammaan dadka oo dhan ay gaalaysiinayaan waxay la fiirisaan kitaabkan Biharul Anwar mujalladka 66 صفحة أفراد فمن لم يكن إماميا صحيح العقيدة فهو كافر قف كان إمامي أهين عقيدته صحسنتها كافر واحد قال مرآة العقول وحكول ليها إسلام مجلسي مجلد كصدحات صفحة شاني طبنات ليس على ملة الإسلام غيرنا أنك مويانا وحكلو دين الإسلام كاستمجرو يدل على كفر المخالفين إرقاس وحكوت سنة يا ضدك أننا خلاف سنة قاليين أيو ليهي ضدك يودن بسيداس أيا لو قاليسين أنك مخالفين توح ولا التنمى أو نقد حيس أو إله أبورت مجرتو عرفت عيادنا وحنكوفها فاهي حلقات أيام كوفها فاهي وهذا الخميني كسو جوري فغيرنا ليسوا إخواننا أسأل الله حلقة سيدون نقول دونتان إن شاء الله. إسلا خوي وعقودها إسلا كتاب هذا مصباح الفقاهة في المعاملات الخوي وعقودها هي أفر بقول سجاشن يتطور أنه ثبت في الرواية جواز سوسودي إن لعنة ذكره لعاي كره عرض جود الوجود من كره لجبر نقون كره الحمن كره لأنه من أهل البدع والريب وكسير بل لا شبهة في كفر إن قاليهين إن أنت عليه وسحر وصار المجرد أيو ليه ووح واضح وشبهه aanan ku jirin ayuu leeyahay marka gaalaysiintii yaa waxay uga fududahay kaba biyo ah oo la cabo ayay uga fududahay wuxuu leeyahay Abdullah Shubar Haqqul Yaqin safxada 278 fartadda aktharu an-nas بسبب ارتداد الصحابة عن الدين نكانوا وضعها يناركي أهل مكة لقاليسي سيقورمي قالوا بالجزيرة العربية صوما أهين ماشي صحابة مارتي علم يقولوا كفافي نبي محمد ودين تقارسي صوما أهن كل الله ينا يوايو جزيرة العرب تتقالها مياه شوية يعني مجرين جزيرة العرب ورولك هذا السعودية اللي سكونها هيا ماشي فيري صحابة دي أردن بحالي وير الدوذي عن الدين وخرجوا عن زمرة المسلمين وكذا مركب وحلا يرتم بين توصيدون على مكاس يا أصحاب النبي يا وحي لقد حي يا بلدان المسلمين مرآة العقول مجلد ككوبينا صفحة الله بقي لوات الحديث كانوا عقود المامي موثق وياه وأهل المدينة شر من أهل مكة هي مدينة وحي كشر بدين ري مكة وأهل مكة يكفرون بالله جهرة سد جهر أي إلهي وكفرين هي مكة هي مكان إلهي ويكو كفريين أيال ليه هي مدينة تهدين لو كسيشر بدين هي شامنا ويكشر بدين كل جود على وذا قالوا شيء هالكاس آيات كجرانيس أكو صاروا كتاب كلي الحدائق الناظرة في أحكام العدرة الطاهرة للبحراني مجلد كسيديتي وانا بقول كتني له عليه وروي في الفقيه عن محمد بن مسلم في الصحيح حديث كان حكوت المامين صحيح يعني
عن أبي جعفر قال قلت له أرأيت من جحد الإمام منكم ما حاله ننك هل إمام وذيك إذن كمل الديداي حالك سمحوية فقال من جحد إماما من الله وبرأ منه من دينه فهو كافر مرتد عن الإسلام ودمه مباح في تلك الحال انت هي الفقريرة أو الحيس وعليه روحي هل إمام ديدا كان بري نقاصي ديديسا وقال مرتدة ديجي سنة إسلام مركز أيو حلالية إسلام مركز أيو ديجيسو حلالية هي بوليه ديجي نوالا حلاشة قفك سو ماركيسي الأوار النعمانية مجلد كلابات الله بقول لحدا إيوه السدين باب دنبو قد أوليه هي في جواز قتلهم واستباحة أموالهم نرجع النواصبتا إن ما عرفتي بنانتهاي إن للايو ديك حلودنا لبنايستو باب دنبو قد كتب حسوق هذا حديث كان يسوق هذا حديث كان محاوي وحصحيحي أيضا نكي لورنجري الحدائق الناظرة أيكو يوسف البحراني مجلد كسيتونات بقول كتني لح أيكو صحيحي وعير مرك وحصوص على الصدوق في علل الشرائع إلى داود بن فرقد قال قلت لأبي عبد الله ما تقول في قتل الناسب روح الناسب كإلا الدراسات وأركتها يعني معصوم كي ويديه قال حلال الدم ليكس وحلال حليس وحلال لكني أتقي عليك أكادك بقيا فإن قدرت هداد أود أن تقلب عليه حائطا إن دربي كسو الدمسيد أو تغرقه في ماء أما بيكون حماشي سيدو كده قوسي سيدو كدشي لكي لا يشهد به عليك سيئة سمرقاتك وفرين أم عدك لك واركين ففعل سماء واغتيال وجريمة لأمر يوي dadka in loo geysto iyo cunfi meesha uu dambeysay kaliya inuu ka fikir duwan yahay markaas waxaan dhahay wiil fama tara fi maalihi xuliisa ka war qaala khudhu xuliisa qaado ma qadarta meesha ka hesho ka qaada ayuu yiri ayuu leeyahay marka waxa soo saaray ayuu leeyahay sidoo kale to sheekhu Taif Tusi fi bab al-khums wal ghanaim min kitab at-tahdhib bi sanadi sahih عن مولانا الصادق قال خذ مال الناسب حيثما وجد وبعث إلينا الخمس مسألة ذا سنوعان xoolaha ninka naasibiga fursad kasta jaanis kasta ku hesho ka qaado annaga khumuska nasiib soo kale tahriir al-wasila al-Khumeini mujallad 352 wuxuu leeyahay wala aqwa ilhaq an-nasibi bi ahli al-harb fi ibahati maghtunima minhum wa ta'allaq al-khum wa ta'alluq al-khums bal al-zahir jawaz akhdh malihi aynama wujid wa bi ay nahw kan wujub ikhraj al-khums xoolaha muslimiinta iyo la banaysanaya Khumeini ayaana banaynaya wuxuu leeyahay naasibiga jaanis kasta iyo fursad kasta xooloodu ku qaadan karto ku qaado khumuskana ka bixi oo imaamadii weynta si saadada isku sheegaya naasibi maxaa la dhahaa ana idin cadeyn doona insha Allah ka soo qaadaya ninkii la dhaho al-mahasin an-nafsaniyya fi ajwibati al-masail al-khurasaniyya المحاسن النفسانية في أجوبة المسائل الخراسانية صفحة الأربع كتن يفرح كله بل أخبارهم تنادي بأن الناصب هو ما يقال له عندهم سنيا حلا أخبار توحي عطينا سايمة معصومين تلاقوا ورني وحل ليه هي ناصب إنه يهي سني إنه يهي هي عطينا كتب أيو حلا ولا كلام في أن المراد بالناصبة فيه هم أهل التصنع حديث كان ناصبة لشيء إن أهل السنة لقوا شك بكم جرى أيو ليه كتاب كلابان سوق قبنا معنى الناصب نوع عدينه وأوراد الأبرار في مأتم الكرار وعليه تأليف الشيخ حسن البحراني لحدا يصدح أهل سنة قاطبة دعواهم حب أهل البيت كاذبة أهل سنة كل جودي شيغانا يان حب أهل البيت كي جعلكم وبين أيوليه بل هم الفرقة الناصبة العاملة بالآراء وحليه وفرقة الناصبة وأيقع أحاديث عدة كهاليس الناصبة ودل حولي صدع جانس كستي فرصة كستا كوكاب لليهي وأيقع يوليه وعسوا قبلنا شهاب الثاقب في بيان معنى الناصب للفقيه المحدث يوسف البحراني لا بقول لحدا يا أفر لا بقول لحدا يو لح هذا المجرم وعليه فيري وحينئذ فبموجب ما دلت عليه هذه الأخبار وصرحت به أولئك الأعلى علماء الأبرار لو أمكن لأحد اغتيال شيء من نفوس هؤلاء وأموالهم هذه فرصة الأهشو إن ضد كان أيجا أهل السنة النواصب نفتو ذمت كمدآت جويسو من غير استلزامه لضرر عليه أو على أحد من إخوانه جاز له فيما بينه وبين الله تعالى أيضا نبكى سوغارن أذيع
iyo qof kaloo walaalahaaga oo madhabka kula haysta shiicada hadduusan dhib kaa soo gaarayn nimanka naftooda inaad jartaa xoolahooda dhacdaa qaab kasto iyo farsamo kastana aad u martaay waa bannaan tahay buu leeyahay fatwa taxriid meeshii ugu fogeyd weeyaan xoolihii muslimiintana sidaas ayaa loo banaystay dhiigoodiina waa la banaystay marka koowaadna waa la gaalaysiiyey arrintaas waxaa kaloo soo guurinayo ninkii la oran jiray alkhuuyi zaciim alxawza alcilmiya kitaabkiisa ayuu kusoo guurinayaa wuxuuna caddeynayaa xadiiska dhahaya khud maal naasib inuu saxiix yahay ayuu caddeynayaa kadib wuxuu ku taayiidinayaa axaadiis kaloo mursal uu ku tilmaamayo oo uu leeyahay axaadiistaasi waxay amrayaan xataa in la dilo haddii jaanis iyo fursad loo helo dadna baab ayayba ka gunteen in dadka muslimiinta la laayo haddaba meeshan waxaa ujeedaan waxaa la gaalaysiiyey suufiyadii waxaa la gaalaysiiyey ashaaciradii kadib waxaa la gaalaysiiyey ahlu sunnihii kadib cid kastoo mukhaalif cid walbo ayaga khilaafsan xataa shiicada kale ha aado marba hadduusan imaami ahayn waa maqlaysiin faman lam yakun imaamiyan saxiixa alcaqiidati fahuwa kaafir 12 hal mid ninkii inkira waa shiici laakiin meesha wuxuu soo dhexgeliyay cabdullahi ibn aftax ama nin kale uu keenay kaasi waxaa weeye kaafir mustaxiqu lilkhuluudi fi nnaar ahlu naar ah muxuu ahay mudan in la dilo jaanis iyo fursad kasta oo lagu helo haddaan lafaaga aad uga baqaynin ama meesha aad kusoo gaadho aad madaxa inaad ku dhafooriso aad ku gaado iyo qaab walbaba xoolihiisa inaad dhacdo xalaal ku yahay cirdigiisa inaad wax ka sheegto oo waad soo marnay alghiiba in wax laga sheego alwaqiicad fiihim wa iktaaru sabbi calayhim lacaayo ilaa ay soo aroortay riwaayo dhahayso dadka annaga naga soo horjeedo dhanba waxaa waaye inama annaasu awlaadu bagaaya waana riwaayo saxiixa mar kale aan idin keenay iyadoo dhammaystiran inama annaasu awlaadu bagaaya maa khala shiicatuna shiicadeenna mooye inta kaleeto dadka oo idil dhammaantoodu waa ilma zino wey cirdigoodii baa la duray ilma zina lagu leeyahay dadkao dhan marba hadduusan ahayn marka raggaan haddeer shiicada galay ilaa shalay maysan ahayn hooyadu markay dhalaysay markay caqlaysteen shiica ma ahayn kadib bay ku biireen marka ma ilma zina ahaayeen cajiib yani waa wax lala yaabo ma ilma zina ahaayeen maagay ahaayeen shiicada ahaayeen marka waa cajiib waa runtii waa marka ninka kutubtaysa waxaas ay ugu qoran tahay yaa raba inuu darsi iyo cashar ka bixiyo takfiir iyo gaalaysiin ummado kalena ku dhaleeceeyo waxaan maqli jiray maroodiga takarta saarantiisa ma arkee midda kale u arka marka kutubtaadana waxaan ku qoran yahay bal haddaad soo shaandheen karto soo shaandhee haddii kale si geesinimo leh u ictiraaf jariime iyo irhaab ka culus ma jiro waxaan meesha ku qoran يا ليتني كنت سمكة